kulankan loogu magac daray dadkaaga la hadal oo maanta lagu qabtay xarunta hanuuninta ee magaaladan Boorama waxaa soo qaban qaadisay maamulka cusub ee dawladda hoose ee magaaladan Boorama waxaana kulankan intii uu socday bulshada ku dhaqani Boorama su'aalo kala duwan ay ku weydiiyeen xubnaha 22 gaaraya ee cusub ee golaha deegaanka ee degmadan Boorama kaga soo baxay doorashadii golaha deegaanka ee dhawaan Somaliland ka dhacday kulankan loogu magac daray dadkaaga la hadal oo bulshada iyo maamulka dawladda hoose isku dhaafsanayeen su'aalaha iyo jawaabaha la xiriira waxqabadkooda iyo qorshahooda mustaqbalka dhow ayaa waxa ugu horeeyna su'aalo kala duwan lagu weydiiyay maayarka degmadan Boorama Saleebaan Xasan Xadi wuxuuna Saleebaan Xasan Xadi sheegay in bariga iyo galbeedka Boorama ay u qorsheysan tahay inay danyarta ku dhaqani u dhisaan guryo kala duwan wuxuuna bulshadu ugu baaqay inay maamulkiisa kala shaqeeyaan horumarinta magaaladan Boorama waxaan ugu talagalnay haddii magaalada aan balaarayno godadkii qashinka inaanu kordhino hal god oo weyn oo kale ayaanu doonaynaa inaanu iibino dawladda hoose waayo qashinkii meel lagu guraa ma jiro wuu buuxsamay gawaaridiiska rugoyn maaha waa shaambo mijirfada laga guraa halkii loogu talagalay lama geeyay agteeda sidii loo geynayay ama iyadii ay buuxsantay waxay noqotay markaa in meel kale loo baahdo oo imika ayaan hawshada iyadana ku jirnaa istaadiyamkii u bilaabmay garoonkii dhallinyartaasi wax alla waxa ku madada ay ku mashquulaan ma jiro waa sababta keentay in kooxaysan Boorama ayuu burco ugu bato Boorama waxaan doonaya inaanu ku tugsanataa $180,000 baa ku baxaya baarkii uu yeelanayaa wuxuu yeelanayaa adugu decoration oo dhan waxaa soo weydiinaya oo halkan sida uu sheegay in gabadhu lagu xigtaa ay dakhligeedu lagu sadxlaabanto maxay ka qorshaysan dakhli kordhinta si ay ugu gaadhaan caasimadaha jaarka waxay leedahay asu maxay ugu tala jira qorsheeyna ganacsatada iyo badajaa inaad suuqyo badan samaysaan katukoobad talaba gobolka baaska waxaa kala qabanaya horena waxay yidhahdeen kuwii hore waxaan ka qabanaynaa dabbeetii hore baa wataan mise tudaba wataan islaamiyaanu bilowday basas baa soo kordhay bajaaj baa soo kordhay waxaynu ognahay haddii aan magaalada banaangaraynin waxba socon maaya waxba jira caasimadaha meelaha qaarkood baanay marin gabadhi waaweyn aan banaangarayne wax walba qaabka dheerkeyga ay wax u gasho musteejooyin baanu samaynaynaa bajaajta u baxda sheekh makaahil waxay noqonaysaa musteejo gaara yeelanaysaa bajaajta u baxda sheekh cismaan sidaas oo yeelanaysaa goob gaara ka baxdo sidoo kale xogayaha dawladda hoose ee magaaladan Boorama Maxamed Cabdi Xaashi Xamari iyo qaar ka mid ah xildhibaanada cusub ee golaha deegaanka degmadan Boorama hadaladii ay ka jeediyeen intii kulankan uu socday waxay noqonayaan kuwo ku soo biyo shubanaya wada shaqeyn ay ka doonayaan bulshada qaybaheeda kala duwan iyo qorshayaal ku saabsan horumarinta Boorama oo mustaqbalka dhow ay rajeynayaan inay ka fuliyaan gudaha magaaladan Boorama Cabdi Fataax Axmed Hadwanaag News magaalada Boorama